horjeedo tacadiyada ka dhacaya koonfur galbeed tacadiyadaas oo isugu jira dil dhac kufsi carruur iyo xarigga sheekh mukhtaar roobo oo sharci darro ku xiran insha allahu tacaala waxaa halkaa isugu yimid jaaliyadda reer koonfur galbeed meeshaan dhan ayay daadsan yihiin waa ujeedaan marka insha allahu tacaala waxaan waraysanaynaa mid ka mid a siyaasiyiinta reer koonfur galbeed oo halkan joogo lagu magacaabo cali baaba sawirkaa muxuu yahay sawirkaan saa u jeedaan waa sawir yani noociisa sawirkaan aa u jeedaan waa sawir aad iyo aad u soo jiitay dhammaan ajaanibtii meesha soo timid ama yani ha ahaadaan dad yani activistiyaal ah ama dad yani journalistiyaal ha ahaadaan waa sawir aad u soo jiitay waana dhacdadii ka dhacday xilligii doorashada 2018 bishii December dhacdadii ka dhacday waaye xasuuqii baydhabo ka dhacay waaye oo lagu xasuuqay maati gaarayso 17 qofood ayuu ahaa waana masruurka ugu saamaynta badan ee aan ka soo qaadanay dhacdadaasi xasuuqa ahaa ee dhacday December 19keedii yaa xasuuqay dadka December 2018 dadka yaa xasuuqay dadka waxaa xasuuqay dowladda federaalka ee garwadeenka uu ka yahay ninka la dhaho maxamed cabdulaahi farmaajo sababta loo xasuuqay maxay tahay dadka sababta loo xasuuqay dadka waxay ahaayeen dad bannaanka u soo baxay oo rabitaankooda iyo shucuurtooda muujinayay ayay ahaayeen sidaa daraaddeed ayaa loo dilay dadkan waa gartay sawirkan kalena muxuu yahay sawirka kore waa xildhibaan maxaa la dhahaa yacquub oo maalintaas dhacdada dhacaysay tacdiyadaasi u soo baxay oo dadka la hadlayay ayaa isna la dilay sawirka ku xiga hoose waxaa waaye ilmihii sheekh aweys ee la dilay waaye ee la gowracay ilaa iyo haddana aabbahood cadaalad uu waysan yahay oo la dhahay ma hadli jirtid marka annaga ayaa u hadlayno oo mataqaanaa cod u ah dulmanayaasha oo dhan marka waxaan leenahay sheekh aweys waxa uu rabaa inuu u helo carruurtiisa cadaalad sheekh aweys carruurtiisa waxa uu u rabaa inuu u helo cadaalad yaa gowracay carruurtan waxaa gowracay niman ay isku heeb yihiin cabdicasiis laftagareen yaa waaye cabdicasiis laftagareen waxaa waaye ninka la keensaday ee xoogga lagu keensaday ee la dul saaray ummaddan reer koonfur galbeed ninka dusha laga saaray waaye oo loo afduubay musharaxii la tartamayey kadib markay ogaadeen in uu ka mataqaanaa aqlabiyad badan yahay oo uu ka shacbiyad badan yahay darteed ayaa mukhtaarna loo afduubtay oo ilaa iyo hadda miiska farmaajo hoostiisa uu ku jiraa ilaa iyo hadda bulshada caalamka maxaysan u arkaynin dhibaatadan koonfur galbeed ka jirta bulshada caalamka dhowr jeer ayay ka hadleen balse ilaa iyo hadda wax kalaamo ah kama ayan qaadin laakiin ka daali mayno in aan xasuusino mar walbo inaan nahay dad cadaalad u raadinayo dadkooda inaan nahay inaan yani mar walba aan xasuusino adduunyada aan u qaylino waan ku qasbannahay bulshada caalamka way badan yihiin haddaan kala dhigno safiirka maraykanka iyo safiiradda ingiriiska ma la xiriirteen aad iyo aad ayaan ula xiriirnay waad og tahay UN panelka ama yani monitoring groupka in ay caddeeyeen wixii ay sheegnay xasuuqii baydhabo ka dhacay way caddeeyeen qoraalladoodii haynaa afduubka mukhtaar roobo inuu ahaa mid khaldan waan haynaa iyagana qoraalladooda balse waxaa dhiman fulintoodii waa ilaahay mahadiis hadda yani ninka la dhaho kulanajiis oo laga qaaday xilka isagana yani hadda waxaan diyaar u nahay in aan si degdega u furno gal dacwadeedkiisa ayaan hadda diyaar u nahay inaan si degdeg u furno haddii alla uusan maya dhihin dowladda ingiriiska waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiso canshuurteenna iyo canshuurta ilmaheena inay joojiyaan ayaan ugu baaqaynaa ay siiyaan dowladda Soomaaliya maxaa yeelay dowladda Soomaaliya ma ahan dowlad dimuqraadi ma ahan dowlad oo mataqaanaa oo cadaalad ma ahan marka waxaan leenahay
farmaajo oo yacni ku riyoonaya ama ku socda dhabbihii adeerkiis waxaan leenahay ha laga joojiyo because farmaajo waxa uu ku socdaa dhaqankii adeerkiis ee ahaa kala talisnimada marka saa daraaddeed dowladda ingiriiska waxaan ugu baaqaynaa in ay canshuurta shacabka britishka ah in ay joojiso siinta ay siinayso soomaaliya gaar ahaan maamulka koonfur galbeed ay ka caawiso dhinaca booliiska iyo militariga ay ka caawiso waxaan ugu baaqaynaa dowladda ingiriiska in ay joojiyaan canshuurteena ay siiyaan obrosriska oo soomaaliya jooga maanta ayaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan carruurtan magacyadooda ma noo sheegi kartaa wiilka waxaa la dhahaa cabdimuncim gabadhana waxaa la dhahaa caaisha waxaana dhalay sheekh aweys sheekh aweysna xildhibaan waa soo maa haa xildhibaan hore u ahaa ilaa haddana cadaalad may ilaa iyo haddana cadaalad waxaa loogu hanjabay haddii uu ka hadlo dhibaatada carruurtiisa loo geystay in la dili doono ama la xiri doono ayaa loogu goldiyey hay-adaha xuquuqul insaanka miyaad la xiriirteen waa la xiriirnay waa u wada dirnay riboodyada oo dhan waa wada siinay haddana yacni waan siinay maantadan yacni waxaan siinay UK amnesty waa siinay eygana yacni in si degdeg ah looga hadlo xasuuqii 3 sano jirsaday ee ka dhacay magaalada baydhabo iyo xasuuqyada hadda dhacaya iyo afduubkii mukhtaar hogow intaba waa ka wada hadalnay waa gartay aad iyo aad u mahadsan idinkaa mudan